Assalaamu calaykum. Kusoo dhowaada kanaalka daruuraha oo aad mar walba uga barateen inuu idiin soo gudbiyo barnaamijyo xiiso leh. Mawduuceena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamij sir ah oo ay xaqiijisay BBC-da qaybteeda Carabiga ayaa lagu soo bandhigay dukumentiyo muujinaya in bilyaneerka ahna milkiilaha kooxda Chelsea Roman Abramovich uu yahay ninka isqarinaya ee barakiciyay shacabka reer Falastiin. Intaan gudagelin warbixintan yaabka leh, fadlan haddii aadan horay like u saarin boggeena Facebook, waxaan kaa codsanaynaa inaad haatan saarto, siina share garayso muuqaalkan. Sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barteena youtube.com/daruuraha. Waa deegaan yar oo ku yaala hareeraha magaalada qadiimiga ah ee Qudus ama Jerusalem ee dhulka Falastiin. Waxaa degan 20,000 oo Falastiiniyiin ah, kuwaas oo magaaladan yar muddo fog u yaqaanay magaca Silwan. Laakiin sanadihii la soo dhaafay waxaa magaalada Silwan ku soo batay xaafadaha ay xoogga ku dhisteen dadka Yuhuudda ah, kuwaas oo magaaladan u bixiyay magaca Ciir David ama magaalada Daa'uud, afka Carabigana noqonaysa Madiinatu Daa'uud. Waxay Israa'iiliyiintani u arkaan in magaaladan ay iyagu leeyihiin, oo wax walba oo taariikh ah oo deegaankani leeyahayna ay yihiin kuwa ay ku faanayaan haddii ay Yuhuud yihiin. Sidaa darteedna ay tahay magaalo muhiimad gaar ah ugu fadhisa dhammaan dadka Yuhuudda ah. Yuhuudda deegaankan isku ballaarinaysa oo guryaha iyo xaafadaha cusub ka dhisanaysa waxaa taageerta hay-ad lagu magacaabo Ilaad oo shaqadeedu tahay inay Yuhuudda ku sii hayso magaaladan ay Falastiin leedahay. 15 sano ee la soo dhaafay, kalabar dhaqaalaha ay hay-adda Ilaad dibadaha ka helaysay waxay ahaayeen kuwo kaga imaanayay shirkado ka diiwaan gashan jasiiradaha Caribbean-ka ee dhaca waqooyi bari ee gacanka Mexico, iyadoo lacagahanna uu u soo diri jiray qof aan la garanayn oo magaciisa qariyay. Laakiin dukumentiyo dhanka xawaaladaha ah oo la kashifay ayaa waxay muujinayeen ninka ka dambeeya shirkadahaasi dhaqaalaha sida joogtada ah u siiya Yuhuudda uu yahay maalqabeenka ama bilyaneerka leh kooxda kubadda cagta Chelsea ee ka dhisan waddanka Ingiriiska, Roman Abramovich, kaas oo haysta jinsiyadaha Israa'iil iyo Ruushka, loona aqoonsan yahay ninka ugu dhaqaalaha badan Israa'iil. Yuhuuddu waxay aad u bartilmaameedsanayaan magaalada Silwan, ama laga soo bilaabo masjidka barakaysan ee Al-Aqsa ilaa Cayn Silwan iyo Xay al-Bustaan. Waxay Yuhuuddu u arkaan inay tahay magaaladii Qudus ee Towreed ee uu qabsaday boqor David muddo haatan laga joogo 3,000 oo sannadood. Waana sababtaasi midda ay Yuhuuddu u sheeganayso dhulkan. Fikirkan ayaa ah mid ay aaminsan tahay hay-adda Ilaad oo magaceeda laga soo gaabiyey xagga magaalada David ama ilaa Madiinati Daa'uud. Waa hay-ad hadafkeedu yahay inay kobciso xiriirka ka dhexeeya Yuhuudda iyo magaalada Qudus oo ay u yaqaanaan Jerusalem. Waxay kaloo aaminsan yihiin Ilaadku in markii ay baaritaan sameeyeen oo ay wareysteen dadka deegaanka ee Yuhuudda iyo Carab isugu jira, waa siday aaminsan yihiin ay ogaadeen inay bartani tahay deegaankii boqorkii labaad ee Yuhuudda, boqor David. Marka luqadda Cibriga ee Yuhuudda lagu sheegana noqonaya David. Dalxiisayaal aad u badan ayaa soo booqda magaaladan ay ula baxeen The City of David, waxaana dadku ay booqdaan godad dhulka hoostiisa ah oo ay Yuhuuddu sheegato inay tahay taariikhda iyo xadaaradda ay ku faanaan ee magaaladan, oo markaa ay tahay in carruurtoodana ay gaarsiiyaan. Hay-adda Ilaad ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 1986, waxaana markii hore hadafkeedu uu ahaa inay deegaamayso magaalada Qudus oo guryo halkaa ay uga dhisto dadka Yuhuudda ah ee doonaya inay deegaan ahaan u degaan. Hase yeeshee sanadkii 2005 ayaa hay-addu waxay beddeshay qorshaheedii. Waxaa jira Yuhuud fara badan oo halkaasi booqasho ahaan u yimid, hase yeeshee aan dib u noqon oo go'aansaday inay halkaa degaan. Hay-adda Ilaad waxa ay go'aan ku gaartay inay u jihaysato dhanka dalxiiska si fikirkeedu ama fikirka Yuhuudda uu u hirgalo, waxaana ay bilaabeen olole dhanka dalxiiska ah oo ay caalamka ugu yeerayaan inay soo booqdaan magaalada qadiimiga ah ee Qudus, iyagoo hadafkooduna yahay in tiro ahaan ay ka bataan
carabta magaaladaasi degan. Shirkado badan oo ka diiwaan gashan dibadaha ayaa lacago fara badan soo gaarsiiyey hay-adda Ilaad. Qaarkood dhaqaalahaasi waxaa laga soo diray jasiiradaha Virgin Islands ee hoostaga Ingiriiska. Wixii ka dambeeyey dagaalkii Israa'iil iyo Carabta ee 1967 ee socday 6 maalmood, waxaa Yuhuuddu ay qabsadeen daanta galbeed iyo bariga Qudus ee Falastiin, iyadoo kadibna laga soo bilaabo 1980 ay Yuhuuddu xoogga saarayeen inay gebi ahaanba la wareegaan magaalada Qudus, maamulkeedana hoos keenaan dhammaan goobaha muqaddaska ah ee magaaladaasi leedahay. Waxaa la sheegaa haatan in 220,000 oo Yuhuud ah ay degan yihiin dhulka ay xoogga ku haystaan ee bariga Qudus, iyagoo ku dhex nool tiro aan ka yareen 350,000 oo Falastiiniyiin ah. Qaramada Midoobay waxa ay u aqoonsan tahay deegaanada ay Yuhuuddu ka dhisanayaan Qudus kuwa aan sharci ahayn, dhulkaasina uu yahay mid ay Yuhuuddu xoog ku qabsatay 1967. Laakiin Israa'iil dheg jalaq uma siiso arrimahaasi, waxayna sii wadataa isballaarinteeda. Intaas ay noo joogto qaybtii koowaad ee ka hadlaysay sida milkiilaha kooxda kubadda cagta Chelsea Roman Abramovich uu $100 milyan ugu deeqay hay-adda Ilaad ee laga leeyahay Israa'iil si xaafado cusub loogu dhiso dadka Yuhuudda ah ee doonaya inay isku ballaariyaan bariga Qudus ee caasimadda Falastiin. La soco qaybta labaad iyo barnaamijkeena xiga. daruuraha